taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa warqad uu xalayta soo saaray waxa uu ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya kaga codsaday in uu siiyo fursad golaha amniga qaranka Soomaaliya ay isugu yimaadaan halkaas oo ku soo bandhigayo cadeymo ku saabsan kiiskii Ikraan Tahliil Faarax kadib markii ay soo baxday warqadan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa xilka qaadis ku sameeyay taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya mudane Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. Tallaabadan uu qaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa muujinaysa in kiiska Ikraan Tahliil Faarax uu ka leexsan yahay hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya oo lagu eedeynayo, waana tallaabo kale oo muujinayso in mucaaradka ay farsoo gashay isla markaasina ay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya gadaal ka riixayaan si cadeymaha uu hayo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya isla markaasina uu ku dhawaaqay inuu ku soo bandhigayo golaha amniga qaranka Soomaaliya loo baabi'iyo. Su'aalaha ugu badan ee dadku ay qabaan ayaa hadiiba taliyaha sirdoonka qaranka Soomaaliya uu hayo warbixin ku saabsan kiiska Ikraan Tahliil Faarax, sababta uu ra'iisul wasaaraha xilka uga qaaday iyo su'aalo fara badan. Haddaba daawade, adigu sideed u aragtaa warbixinta uu codsaday taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya in uu ku soo bandhigayo golaha amniga qaranka Soomaaliya?